اللحاد أيها الدمرية وحن ماشي كفهمينا صدح سنة إنه مركع ومرة هيو السنة في صدحات إنه يمد إنه شوفي إنه إلهي ما إله وما هتقوله إنه سهلي إن أنسيت أسوق إنه أنت إنه يكون إنه بشرطه بعد كان سينوغنا هاي وحا أساسي كالية دقر هاي دبادة كنور وحا إنه أساسين وسبب إنه قوني سامحي وأساسين سبب وحوي ما دام ولو بني هرمر إنه مدي لقى بيستو ودنكي هرمر كان لغاية ودنك لقى بيستو أيه وحيو أركين وحيالها أغوم من مثال إيمان تودنكي أي أوقا من كران إنه وحبرشتها سبب وحبرشتها ومدها مركا لتيري وحا يكوكا لهركعان هرمر يكوكا لان يكوكا لهرمران وحاول وحبرشو وحبرشو تلك وكوكا برشبدية هاي أيو كهر مربدية وكوناكسية تلك وكاقوم بدية هاي أيو دكيس وكوناكسية هاي تلك وكاقوم بدية هاي أيو دكيس وكآمن بدية حق النبضة إيو وناك أيو بدية ساترت القرآن هرمرشا آخرية جوبة وحقوفة ديا وحبرشة العلم أيو كفة ديا إلهي نوى من سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تذكر وحيقانية تذكر الاسمد معه ساترت وحبرشة وشيء أغم مهمسا أمده وحكيك نسقف أقوام تله هي قفك الجاهل كفرق أو لحية إذن أمد جاهلين هي أمد أقوام له فرق وين باوكر لحين هي ساترت أيه وحوار كان وحا أغم مهمسا تذكر الله كمان كان إنه تهي وحبرشة إنه هلان marka sababtu waxay ahaanaysaa su'aashu maadaama wadanka ay ka jirtay waxbarasho oo xukuumi ah oo wadanka ay ka jirtay oo dawladda meelo badan ay maaragtay ugu deeqday maxay keenaysaa weeyaan oo macnaha waaba loo baahnayn taas waxa weeye wax yar haddaan iyadana yar taabano waxbarashada dawladda ama macaahid madaarista ka jirta wadanka waxana way isku ittifaaqaan oo way isku mid waxana waa isku khilaafsanaa waxaa isku mid ka nahay oo maxadku wuxuu kala wadaagaa madaarista kale xagga manhajka dawliga ee waxbarashada ugu baran xagga dawliga waa istigaamay tan waa isku waafaqsanahay oo maadooyinka waa wada qaadanaa waxaa kaloo isku waafaqsanahay xagga maamulka waxaan wada hoos tagnaa wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo sidoo kale wadanahay xagga shahaadada waa isku mid shahaadada isdiilaadka dowladda ku xidhayso iyo midda umahadku laga bixiyo waa isku mid tobnaadka tobnaadka xagga shahaadana waa isku mid farqiga inoo dhexeeya oo keliya wuxuu noqonayaa innagu waxaan ku siyaarinay taabiya islaamiya iyo luqa carabiya labadaas ayaa lagu siyaari farqiga inoo dhexeeya waa midaasna maxaa loo doortay waxaa loo doortay ilmahanu wuxuu u baahan yahay in uu fahmo diintiisii siduu ilaahay u caabudi lahaa inuu fahmo dhaqanka wanaagsan iyo islaamka oo ardaygu uu yaqaano xuquuqda ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala